qaybo fara badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay ka soconayaan howlgallo kala duwan oo ay fulinayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya deegaanada Tawfiiq iyo sidoo kaleeto wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay wararka ka imaanaya ay sheegayaan in saakay halkaasi howlgallo kala duwan ay ka wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ciidamada dawladda ayaana howlgalladaasi kala duwan oo ay ka wadaan deegaanada Tawfiiq iyo wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay ku baacsanayaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo shalay duulaan ku soo qaaday deegaanadaasi kadibna lagu jabiyay dagaal culus oo dhaxmaray ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnihii kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday waxaana ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay guul weyn ay ka sheegteen dagaalka ka dhacay deegaanka wargaadhi iyo sidoo kale Tawfiiqa oo ay tilmaameen in gabi ahaanba gacanta ay ku hayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya mudooyinkii ugu dambeeyay kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan waxa ay ku soo qaadaysay fariisimaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe iyagoona isku dayaya in ay la wareegaan deegaano dhowr ah oo muhiim u ah isku socodka gobolka Shabeellada Dhexe deegaanadaasi oo qayb ay ka yihiin wargaadhi Tawfiiq iyo sidoo kale deegaano kale oo hoostaga degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe kuwaasi oo istiraatiiji u ah isku socodka gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Dhexe